halkani waa daartii sayid Cabdulla Xasan sayid Maxamed Cabdulla Xasan dhismaha kan waa dhisme aad u dheer oo wuxuu ka soo bilaabmay ilaa halkaas ilaa halka isku wareeg adigu waa weeyaan waa 25 dhisme ku fadhiya qalcado gaar oo ay kamid tahay qalcadan iyo qalcado kale oo haga uu lahaa qalcadan waxay kamid ahayd qalcadihii muhiimka ahaa uu deganaa sayidku waa qalcadii Sanaag gobolka Sanaag gaar ahaan halkani waa degmada Buraan korkeeda meesha loo yaqaan rabka dacarta oo daar ilaalo meesha la yiraahdo 1913 bay deganaayeen ciidamada sayidka iyo xulafadiisu goobihii ay ka duuli jireen oo Soomaaliya astada u ahaa bay halkani kamid tahay sida Ayl iyo meesha la yiraahdo Taleex iyo goobo kale oo kamid ah Soomaaliya sida gobolka Sanaag ay halkani uga mid ahayd marka halkan waxa la yiraahdaa daar ilaalo waa goob u gaara oo ciidamadu ay deganaayeen isla markaana waa goob ka sarreysa ceelka Buraan magaaladiina xagga ku taala ceelkiina xagga ku yaal saddex wada soo gal wadana xagga ka soo gashaa wadana xagga ka soo gashaa wadana xagga ka soo gashaa hadda saddexdii wadaba anigu indhahaygan ku arkaa gaariga ka soo baxa wadada xagga bari ee Boosaasana uu muuqdaa raadaarkiisa oo xagga gaariga ka yimaada xagga galbeed iyo waqooyina xaggana wadadiisa waatan kan koonfur ka yimaadana waa kan marka sababaha taariikhdan badanaaba dadku ay u asteeyeen oo loo yiri sayidku waxyaabaha halkan u degay wax kamid ahaa waxay ahayd goob ciidamada sayidku ay amaankooda ku adkeyn karaan oo halkaas iyagu ay goob ay iyagu ku xafidi karaan amnigooda ama ilaaladooda waxay kamid ahayd ilaalooyinka ugu adag oo markaas ay amaankooda way wareegsan tahay meeshan waa wareeg dheer bay leedahay halkan waa meel iyana dhisman oo waxay u dhisan tahay qaab dhagaxa oo sida dhagaxan uu dhisan yahay oo kale ayay u dhisan tahay marka dhagaxan iyo maxay ahayd qaabka loo dhisay waa qaab dhagaxyo la saaray meesha oo waxa weeyaan waa dhoobo iyo dhagax la saaray oo marka ma jirin dhismayaal waxaas ma jirin oo wax taariikh fog bay ahayd ujeedooyinka halkan ciidanka sayidku u sameysteen waxay kamid ahayd ilaaladii meelaha ilaalada gaarka ahaa oo halkan oo kale saddex wada waa soo gala ceelkan Buraan baa halka ku yaal ka bacdina xaggan wada ka soo gasha xaggana wada kala soo gasha saddexda wado bay halkan waxay u tahay center marka waxyaabihii ay odayaashu sheegeen oo taariikhda halkan ku xusan ee sayidku xilliga u degay waxay ahayd oo ujeedooyinka u degan waxay ahayd oo ilaalada waxay ahayd meel center ah oo xarumaha oo dhan